muddo 10 bilood ayaa hadda laga joogaa doorashadii guud ee ka dhacday wadanka waqooyiga Mandheera waxaa hadda ka bilowday loolan hooseeyada lahayn siyaasadeed kadib markii ay soo ifbaxeen musharaxiin doonaya inay u tartamaan kursiga waqooyiga Mandheera doorashada dambe hadalhaynta siyaasadeed ee waqooyiga Mandheera ayaa toddobaadkan sare u kacday kadib markii qaran sare Cabdirashiid Maxamed uu soo bandhigay damiciisa ku aadan kursiga xildhibaannimo ee waqooyiga Mandheera Cabdirashiid Maxamed waa wiil dhalinyaro ah ku koray kuna dhashay magaalada Mandheera waxa uu dugsiga hoose dhexe ku qaatay Mandheera Poistam Primary School dugsiga sare waxa uu ka dhameeyay Mandheera Secondary School ee loo yaqaan MSS waxa uu jaamacadiisa ku qaatay University of Nairobi wiilkan oo hadda ah qareen waxa uu xubsiibanayaa dhanka siyaasadda wuxuu doonayaa inuu wax weyn ka bedelo oo loolan adag ka muujiyo kursiga waqooyiga Mandheera oo sanadkan xiisa gaar leh siyaabo kala duwan ayay dadka u falanqeynayaan kadib markii la arkay musharaxnimada Cabdirashiid Maxamed waxaan halkan ku dul istaagi doonaa loolanka ninkan iyo aragtida dadka degan waqooyiga Mandheera dadka aqoonta dheeraadka u leh ninkan waxay ku qiimeynayaan inuu yahay shakhsi adag oo la dhigaalsan karin mowqifkiisa siyaasadeed iyo difaaciisa waxa uu xaq u leeyahay labo dadka waqooyiga Mandheera waxay horay u maqli jireen hebel waa la dhacay hebel siyaasad xumo ayaa haysatay waxyaabo badan waxaa soo idil oo waxyaabaha dhagtiisa ku dhici karin Cabdirashiid Maxamed marka la eego xifradiisa qareennimada uu muddo badan ku soo shaqeynayay waqooyiga Mandheera dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira muddo badan adeegyada caafimaadka oo hooseeya waxbarashada wadaxumada iyo biyaha adeegyada asaasiga oo waxyaabaha sida gaarka uu doonayo inuu wax ka bedelo Cabdirashiid fursadaha siyaasadeed ee haysto mudane Cabdirashiid Maxamed koow waa nin deegaan oo dadka ka iibin kara siyaasadiisa taasi waa fursadiisa koowaad labo waa nin wax badan ka og baahiyaha ka jira guud ahaan waqooyiga Mandheera marka la barbar dhigo dhigooda ragga loolanka muujiyay hooyada xoolaha kula jirta duleedka Sarmaan iyo aabaha xoolaha ku raacaya baadiyaha Laanqurac waxay hadda si isku mid ah u maqleen dhawaqa ugubka ee siyaasadda Mandheera North sababta musharaxnimada Cabdirashiid Maxamed ay u sameysay hadalhayn badan waa dhaqan siyaasadeed oo cusub oo xitaa saameyn ku reebaya ragga u gogol xaranaya kursiga waqooyiga Mandheera doorashada dambe dhowrkii sano ugu dambeysay waqooyiga Mandheera waxaa soo maray siyaasiyiin kala duwan oo aad u badan kuwaas oo imtixaan u maray hanashada kursiga waqooyiga Mandheera balse dadka falanqeeya siyaasadda Mandheera North waxay sheegayaan in Cabdirashiid Maxamed uu taasi dhib yar ka mari karo marka la eego xirintiisa siyaasadeed Cabdirashiid Maxamed oo hadda ah qareen waxa uu doonayay inuu wax ka bedelo dhibaatada horumar la'aanta waqooyiga Mandheera wax ka bedelka guud ahaan hanaanka adeeg bixinta waqooyiga Mandheera Cabdirashiid waxa uu muuqdaa mid faham buuxa ka haysta marxaladda siyaasadeed baahiyeed iyo guud ahaan xaalka waqooyiga Mandheera North loolanka Cabdirashiid oo ah mid ku qotoma siyaasad aragti fog leh iyo xeelad qarsoon oo sharciyad qareen la raaciyay ee dadka reer waqooyiga Mandheera si weyn u hadal hayaan waa diyaarintii Saako Bulle